maalin walba adduunkan waxaa ka dhaca dhacdooyin badan oo la yaab leh kuwaasoo qaarkood loo waayo fasiraad cad sababtoo ah waa wax caadiga ka baxsan. muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xaqiiqada ninkii uurka qaaday ee dhalay 3 jeer. sidee ayayna xaqiiqo ku tahay arrintaasi? inta aan muuqaalka guda gelin, haddii channelkan uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo nagu soo biir, like na saar muuqaalkan. sheekadan sida aad moodo ma ahan wax badan ayaa runka ah. waxaa jira warar la isla dhex marayo tan iyo bilowgii sanadda 2020 taasi oo ah nin rag oo uur qaaday isla markaana caruur dhalay kaliya ma ahan xitaa 1 jeer ee waa tiro gaaraysa 3 jeer. manunbaa mise waa been? sidee ayayna suurtagal ku noqon kartaa arrintan? dhab ahaan ninkan uurka qaaday 3 jeer sida caafimaadka qabtana ku dhalay waxaa loo garan ogyahay magaca Thomas, waxaana ay da'diisu hadda tahay 35 sano. cilmi ahaan ma jirto suurtagalnimo uu nin rag uur ku qaadi karo, waayo ma lahan ilmo galeen ee carruurta ku kori karaan marka ay yaryihiin, taasi oo muujinaysa inay sabab dhici karin dhacdadan. balse qisada ninkan waa mid xaqiiqo ah. Thomas waxaa u suura gashay in 3 jeer uu uur qaado. asalkiisa waxa uu ahaa qof dumar ah oo ay u dhammaystiran yihiin dabeecadaha dumarnimo. kadibna markii uu soo qaangaaray waxa uu ku qanci waayay habsiimaysigiisa, waxaana uu jeclaystay inuu jirka muuqda isaga sameeyo qaliin, sidoo kalena uu isku ekaysiiyo nin rag ah, waana waxa ficil ahaan dhacay. muddo kadib markii ay nolosha isku fahmeen qof gaar ah ayuu raalli ku noqday inuu isagu noqdo hooyada carruurta oo isaguba uu uurka qaado, waana waxa dhacay maadaama qof muuqaal ahaan ragga u eg uu uurka qaadiyo. xilligan qoys ahaan waa mid isku faraxsan, waxaana carruur ahaan familkan ay haystaan 3 carruur ah, gabadh iyo 2 wiil, waxaana ay ku nool yihiin nolol la mid ah midda dadka caadiga ah. carruurtan dhammaantood waxay u haystaan in Thomas uu yahay aabbahooda, balse waxaa la yaab ah marka ay weynaadaan oo ay maqlaan in Thomas uu isagu uurka ku qaaday isla markaana uu dhalay. waxaase la isweydiinayaa markaasi maxay ugu wici doonaan, hooyo ama aabbe? aad yaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan like saar oo nagu soo biir haddii aadan horey noola joogin.